wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa gobolka Awdal gaar ahaan deegaanka Shirwac ka bilaabi doonta kulanka bilowga dib u habaynta garab raratada macdanta. kulankan ayaa dhammaan waxa laga fulin doonaa gobolada dalka oo dhan, waxaana deegaanka Shirwac laga bilaabi doonaa 22 bisha Afraad 2025 oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota. inta lagu guda jiro dib u habaynta garab raratada waxaa sare loo qaadi doonaa qodobadan: 1 aqoontooda, 2 waxa la bari doonaa qiimaha macdantooda, 3 waxa la isku xidhi doonaa garab raratada iyo wasaaradda, 4 ugu dambeyn marka uu tababarku dhamaado wasaaraddu waxa ay u qaybin doontaa qalabka caafimaadkooda iyo shaqadooda wax ka taraya maadaama ay wasaaraddu aqoontooda sare u qaaday. 5 ugu dambeyn wasaaraddu waxa ay ka warheli doontaa xaaladda garab raratada. haddaba wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland Engineer Ahmed Jaamac Barre ayaa fariin u diray garab raratada macdanta. garab rarto marka la leeyahay kulli waxa magacaas wuxuu ku waxa weeyaan dad meel isugu tagay oo macdan qodaya oo alaabtooda degta ku sita oo aan xirfad lahayn oo gooda dheer qodaya oo naftooduna khatar ku jirto deegaankana khatar ku haya sharciyana aan la samadan waa dadka noocaas. geestiisana agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland Shucaib Cismaan aw Maxamuud Buurmadow ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay hawshan u leedahay garab raratada iyo wasaaradda. laga soo bilaabo 2017 waxaa dalka ka bilaabmay in dadku si iskooda ula soo baxaan macdanaha kala duwan ee dalka iyaga oo aan haysan wax ruqsada ama ogolaanshiyo ay siisay wasaaradda tamarta iyo macdantu. wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Cabdilaahi Baashe ayaa isaguna fariintan diray in la nidaamiyo macdan dadka macdanta gurta waxa weeye individualska ah in la nidaamiyo la diiwaan geliyo aad iyo aad bay runtii arintani muhiim u tahay. hadday tahay dadka maaragta waxaa tiraahdeen garab raratada tiraahdeen dadka macdanta gurta ama garab raratada ah. wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ayaa isaguna bulshada garab raratada ay dhanka macdanta waxa uu la wadaagay fariintan. ka wasaarad ahaan horumarinta maalgashiga iyo warshadaha iyo macdanta wax weyn baa naga dhaxeeya oo runtii aan aad ugu faraxsanahay. runtii intii muddadii yareeda koobneed aan wada joognay xiriirka quruxda badan iyo iskaashiga iyo wada qabsiga labada wasaaradood ka dhaxeeya. gudoomiyaha guddida khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa iyaguna ka warmay doorka iyo kaalinta ay hawshan ku leeyihiin ka gol ahaan. carqaladaha ugu waaweyn ee jira waa saad sheegteen dadka garab raratada wax de skills oo ay u leeyihiin ama capacity building aqoon hore oo loo tababaray ma jirto intaan ogahay. waxaan anigu dhiirigelinayaa sida wasaaraddu u soo dhigtay ama runtii waxa weeye dadkan maanta macdanta gurtaa waxay faa'iidaan ma jirto sidaynu ognahay. waxa weeye waa naftooda unbaa ku dhimata sida hore loo sheegay. waxay u kala baxaan laba dadka macdan baarayaasha ahi qola waa nin ama saacad iska sita ama iska nasiibiyo xiro iska dhalaalaya baa dadka qaar iskaga dawaqeeno way wareegaano.